hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigay muuqaallo iyo dad markaasi la tuumsan yahay in ay gacan weyn ka geysteen qarixii ka dhacay diyaaradda Daalo toddobaadkii la soo dhaafay. dowladda Soomaaliya ayaa ku howlaneyd maalmihii la soo dhaafay baaritaano ku aadan wixii ka dhacay labadii bishan diyaaradda Daalo Airlines waxaana markii ugu horeysay la soo bandhigay muuqaallo rasmi oo ka turjumaya wixii dhacay. kooxdan oo ahayd shabakad abaabulan oo ka tirsan argagixisada August waxay isku dubarideen qorshe dhacusoobo ay ku doonayeen inay ku qarxiyaan diyaarad ay leedahay shirkadda Daalo waxyar kadib markii ay ka kacday garoonka Aadan Cadde waxaana qaraxan loo isticmaalay laptop laga soo buuxiyay walxaha qarxa kaasoo watay qof ka mid ah rakaabkii diyaaradda oo fariistay meel u dhow baalka diyaaradda si uu u burburiyo baalasha diyaaradda ayna u dhacdo diyaaraddu waxaana qaraxan loo isticmaalay laptop laga soo buuxiyay walxaha qarxa kaasoo watay qof ka mid ah rakaabka oo fariistay meel u dhow baalka diyaaradda si uu u burburiyo baalasha diyaaradda ayna u dhacdo diyaaraddaasi oo halkaa ay ku dhintaan dadka Soomaaliyeed ee safarka ah hase yeeshee kaligiis ay la gooday qaybtii uu ka fadhiyay diyaaradda kadibna duuliyay diyaaradda waxa uu dadkii kale oo badqaba dib ugu soo celiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kadib markaa mashaqadaasi dhacday ayay NISA bilowday baaritaano ku aadan arrintan waxayna gabi ahaanba isku keentay muuqaaladii garoonka ee maalinkaas ay duubeen kaamirooyinka CCTV ee NISA ugu rakaban garoonka waxaana muuqaaladan idinkaga muuqda sidaad arkaysaan laba nin oo mid wata jaakad u egtay shaqaalaha garoonka iyo nin kale oo wata laptop kuwaasoo gudbinaya qaraxa sida ka muuqata muuqaalka labada nin waxay qaraxa ku wareejinayaan qofka ay ugu tala galeen inuu isqarxiyo oo la raacay laptopka diyaaradda waxaa iyana jira gacmo kale oo caawiya kooxdan kuwaasoo isugu jira kuwa wax ka ogaa dhagarta iyo kuwa la isticmaalay iyagoo aan ka warhayn dhagarta la maleegayo dhammaantoodna kooxahan waxay ku jiraan gacanta NISA iyadoo baaritaanka arrintana ay maamulayaan madaxda ugu sarreysa qaranka Soomaaliya ninka la socda ninka jaakada wata oo ah nin laga yaqaan garoonka Muqdisho waxa uu cuntageeye ka soo noqday maqaayado dhowr oo ku yaala Muqdisho dhammaan maqaayadahaasina waxay noqdeen kuwa aqarkii la qarxiyay waxayna taasi muujinaysaa inuu ahaa ninkan mid waqtiyo dhowr ah soo dhagraya dadka Soomaaliyeed iyadoona ninkan magaciisa iyo muuqaalo dheeri ah hay-adaha ammaanku dib ka soo gudbin doonaan waxaana ninkan oo kaalin weyn ka ciyaar hawshan si aan loo helin raadadka uu hayo ku soo qaatay gaarigiisa ninka jaakada wata ee la socda kaasoo kadibna isagoo saaran gaarigiisa u sheegay inuu wax yar sugo si uu dukaan wax uga gato dabeetana waxa uu qarxiyay gaarigiisii uu isagu lahaa iyadoona halkaas uu ku dhintay ninkii hawsha dhagarta garoonka la soo maleegay si uu soo afjara dabagalka kiiskan dhagar qabahan jaakada wata ee xitaa dilay saaxiibkiis wax la dhagray waxa uu hadda ku jiraa gacanta NISA waana kan isagoo ka hadlaya doorkiisii arrintan mas'uuliyadii airportkaas iyo dayacaas baad soo dhiibay hoteelada Roswell shabakadan soo abaabulay weerarkii dhacusoobo ee la doonayay in lagu laayo rakaabkii saarnaa diyaaradda Daalo Airlines waxay hadda dhammaantood ku jiraan gacanta NISA waxaa sidoo kale xiran muwaadiniin kale oo la tuunsan yahay kuwaas oo hadda su'aalo la weydiinayo Cabdi Africa SNTV Muqdisho.